dalka Soomaaliya ayaa isbedelo waaweyn markani ku dhacaya waxaana walaac xooggan laga qabaa xaaladda dalka Soomaaliya iyo qaabka markaasi looga heshiin karo doorashooyinka muranka badan uu hareeyay waxaynu muuqaalkani ku eegi doonaa daawadayaal dawladda Mareykanka oo markaasi gabi ahaanba ka goosatay kabkii dhaqaalaha ee markaasi lagu taageeri jiray ciidamada wadamada gobolka ee ka howlgala koonfurta dalka Soomaaliya midowga Afrika oo walaac xooggan iyagana ka muujiyay dhaqaalaha markaasi Mareykanku ay sheegeen in ay dib uga ceshan doonaan dib dambana markaasi aysan ugu taageeri doonin marka la gaaro 31 December ee dhamaadka sanadkan 2026 waxaynu eegi doonaa daawadayaal waxa markani magaalada Muqdisho ka socda qabanqaabada iyo sidoo kale in la diyaariyo kulan ballaaran oo la isku keeni doono madaxda Soomaaliyeed oo markaasi isku haysta xukunka ama kursiga yaala Villa Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale golaha mustaqbalka Soomaaliyeed dawladda Turkiga ayaa dadaal badan markani ugu jirta in markaasi ay gogol u fidiso isla markaana lagu kulansiinayo dhinacyada si xal waara looga gaaro arrimaha ay ugu horeeyaan doorashooyinka iyo wax ka bedelka dastuurka halka wadamada reer galbeedkana iyagana ay yihiin kuwa sida weyn markan uga shaqeynaya isku soo dhawaanshiyaha dhinacyada madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si degdeg ah dalka ugu soo laabtay isagoo toddobaadyadii la soo dhaafay dalka dibadiisa ku maqnaa si uu uga qayb galo kulanka iyo wada tashiga aayaha mustaqbalka ee markaasi dalka Soomaaliya waxaynu eegi doonaa oo kale daawadayaal madaxweynaha muddaxileedku uu ka dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinac walba markani cadaadis laga saaraya iyada oo arinta ugu weyn xilligani lagu cadaadinaya ay ka mid tahay in Xasan Sheekh Maxamuud loo arka in uu dalka haadaan dheer markaasi uu ku ridayo oo mar dambe aan laga soo celin kareynin haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qasbi doonaa ayaa la leeyahay in uu tanaasul dhinacyo badan ah sameeyo halka golaha mustaqbalka Soomaaliyeedna iyagana ay soo bandhigi doonaan modelka doorasho ay doonayaan in dalkani ay ka dhacdo wararka ugu dambeeyay iyo xilligani xaalka dalka Soomaaliya halka uu taagan yahay dadaalada markaasi ay ugu jiraan dawladda Turkiga iyo sidoo kale beesha caalamka in arrimahani laga heshiiyo rajada laga qabo kulankan iyo qaabka markaasi looga heshiin karo hanaanka doorashooyinka Jubbaland iyo Puntland oo iyagana la doonaya in ay qayb ka noqdaan kulanka